Come si trova? la jooga anigoo ayagana si gaar ah waqtigooda uga mahadcelinaya aan soo gaabiyo codsigaygu waxa waaye kolley waxay u taallaa moderatorka Dr. Bashiir Cabdulqaadir isaga xakamayn doona saacada ma haysano waa jimce marna inta maqrib tukanna hadana inaan isku soo noqono ayuu walaw iyadoo dhici karta taasi hadana hadii loo baahdo ilaa hal saac inaan wadan karno laakiin waxaan isku dayeynaa hadalka badani waa fiican yahay oo wuxuu leeyahay wise agreement u dambeeyo la gaaro mar hadii ay diyooyinku ay midba mid ka daba imaanayso waa wax aad u qiimo badan laakiin waxaan rabnaa in pointiga la taabto hadday tahay comments hadday tahay question la weydiinayo qofka hal su'aal ka badan ama laba su'aalood ama tii hore loo weydiiyay inaan ugu celinin waxaan aad idinka codsanayaa inaan toobigaygu uu ku ekaado oo qofka aydiyadiisa fikradiisa tuu adigu aad oran lahayd maaha waa tii isagu yiri haddaa mid fiican haysid iyo haddii mid lamid aad haysid aydiyada in la isku ixtiraamo aqoonyahanka halkan waqtigooda la soo siiyay in lagu ixtiraamo fikradooda kaliya criticism oo constructive ah hab noocaas in wax loo weydiiyo toobigana inaan ilaalino uusan noqonin toobinaga walow uu baahsan yahay inaan ilaalino mararka qaarkood Soomaalida waxaa la yiraahdaa Soomaaligu waa hadal aad u adag oo qiimo badan adduunka literature marka la fiirsho dadka Soomaaliyeedna waa dad aad u hadal badan laakiin haddana wada hadalkaas kuma aan heshiin sababta keentaana waxa waaye nin buu qoray wuxuu yiri Soomaalida waxaan ogaadu yiri inaysan isku dhageysanin inay isfahmaan ay isku dhageystaan inay isku jawaabaan marka qofka kale wuxuu jecel yahay warkan kala hadalka uu dhameeyay uu jawaabay that means laysma fahmin marka waxaan codsanayaa academic aqoonyahan waxaan ogahay inay dhab naga tahay waayahan dambana aan cadaynay taasi inay been tahay oo aan isdhageysano dhibka noogu badan waa mid kutaaga iyo ku tirkutaanta wada hadal oo la isla dhageysto la fahmo erayga iyo macnawiga qofka u jeeda iyo meesha uu jeeday aad baan idinkaga mahadcelinayaa imaashiina maalinta jimcaha ee waqtiga aan noogto in institution magaciisa ku hadlaaya waxa aad kala farxadiya inaan fariintan gudbiyo institutionada fadhiya waxa khasab ku ah ama ha noqoto isbedelkaas jira ama mid annaga dhexdeena ha noqotee inaan helno wada jir aan uga hadli karno maskaxdayada isku geyno aan uga hadli karno soo institutionada ha noqdeen kuwa jaamacadeed ha noqdeen kuwa NGO ha noqdeen kuwa maaliyadeed han si rabana oo kala duwanaadeen laakiin waa isku hal bahwa waa hal qabiil kala mali so gruubada hadda maanta joogayay ha casumeen ha ka sheegan waqtiga qabanayaan 3 bilood ka bacda anoo mid kala qabanayna waa inaan helno meel aan maskaxdayada fikradaheeda ku kala bedelno taasaan noo muhiima aad baad u mahadsantiin mar labaad institutionka wuxuu leeyahay soo dhawaada waana furan yahay kadib barnaamijkeena wuxuu noogu soconayaa su'aalo aan u bandhigayno panelka dadka oo fadhiya qof la arko panelka meel uu kaga qoran yahay questionskiisa panelka waxaa u qaybsan yahay 4 qaybood موضوع مسؤول إيماننا وحاوي إسبدلنا كسؤال جيس كأفريقيا سيد سامنتا يقول إلى حاجة السياسة ده حاجة علمها بالشدة حاجة تقالها هي حاجة نبتدية هذا برضو حكى هذا لا يبقى ويانا وحان توقف في كسر كوريا رأي جيسة مركي جماعة panelka 4 qodob haddana waxaa la siinayaa qofka aqoonyahanka ayaa la siinayaa wixii laga tegtegay 4 qaybood min 5 daqiiqo wixii ka dambeeyo dadweynaha ayaan usoo gudbeynaa su'aalaha iyo aragtida aad qabtaan dood isweydaarsi ayay noqonaysaa 10 daqiiqo iyo 5 daqiiqo kadib معك سرطان إن وضع استراتيجية وحرنا إن كأفافنا إن المسؤول كأن responsibility إن الجوساري كريم
dood kasta oo soo bandhigto qofka aqoon-yahanka oo banaanka jooga. doodaas isaa ka mas-uula sidaana ay u taalaan. taas ma ahan mid oo necessary ah oo muhiim ah in loo arko maxadka aragtidiisa. marka maxadka aragtidiisa gooni waa laakiin way ka baxsan tahay dadka panelka iyo commentiga iyo dadka meesha ka hadlaya hadalka ay soo jeedinayaan. intaa kadib waxaan ku bilaabeynaa qodobka oo siyaasadeed. su-aasha koowaad oo isweydiinayno waxaa weeye isbeddeladan ka socda geeska Africa ma wuxuu la imaan karaa degenaan siyaasadeed oo gobolka geeska Africa ay helaan mise si ka duwan? maxaana caqabado iyo maxaana fursado ah oo dowladaha geeska Africa ay kaga faa'iidaysan karaa dhaqdhaqaaqan isbeddel oo ka socda gobolka geeska Africa? qodobkaas waxaa noo tifatiraayo دكتور سعادة الوزير عبد أحمد باقر. تفضل. أهمية الدار أولى مدة الصومالية جدهان جيس كأفريقيا هي ودودي الغابة كذا يقول حتى سموجين السنواتين لوسو جيستي إن الإسلام يقول أنا أسلي هاي هل دودي لو دودي ما في الله دودي سريع يعني بعنا ملك الدنيا دك الدنيا كذا يقول أقول su-aasha koowaad haddaan usoo jeesto oo ah isbeddelkan ka dhacay ma keenaya xasilooni gobolka kusoo kordha waxaan leeyahay marka hore xoogaa gadaal aan u noqon doonaa isbeddelkan la sheegaya muxuu yahay hore waa maxay wax dhacay haddaan soo koobo ay Ethiopia bishii April ayaa dowladda Ethiopia waxa ay soo bandhigtay hoggaan cusub. hoggaankaas oo la wareegay bishii April bay ahayd. hoggaankaa wuxuu la wareegay hoggaankii xisbiga EPRDF la yiraahdo iyo hoggaankii dowladda oo ah ra-iisul wasaarihii dalkeenu noqday. haddaad fiirso say ku timid waxay ku timid Ethiopia 91 ayaa isbeddel ka dhacay bishii May. annaga January baa isbeddelka dalkeenu ka dhacay, Maxamed Siyaad Barre oo ka tegey. bishii Mayna isbeddelka Ethiopia ka dhacay 91 ilaa 95 waxay ka shaqaynayeen inay gobol xaaraan inay doorashooyin ay qabsadaan. marka 95 baa doorashadii u horeysay ay qabsadeen. 95 sano mar baa markaa la qabanayay. waxaa tii ugu dambeysay oo ahayd 2015 waxaa la qabtay iyadoo hogaamiyihii muddada dheer hayay uu meesha ka baxay oo meel sanaawi geeridiisa waxay ahayd 2012 bay ahayd. 15kiina waxaa la qabtay doorashadaasaa la qabtay. laakiin intuu isaga joogay doorashadii ugu dambeysay labadii doorashoo isku xigtay ayaa waxaa ka dhacay qalalaasa ka dhacay. dadkana raalli kama ahayn sida dalka doorashooyinka looga qabto, waxaana dowladda lagu dhaliilayay in ay caburisay xorriyaddii dadweynaha, inay caburisay, in ay maxaan ku rahdaa doorashadii afka u dhigatay, in dadkii ka qayliyana xarig iyo xabsi lagala daalay maarta. marka iyagoo caraysan ayaa meesha waxaa ka baxay ra-iisul wasaarihii baa ka baxay oo xoogga badnaayo dadkoo dhan isku hayay maarta. wixii ka dambeeyey maxaan ku rahdaa doorashadii qalalaasaha ayaa ka dhashay ilaa la gaaray 2014 oo dadkii Addis Ababa joogay gaar ahaan magaaladii oo yaraatay oo u baahatay inay fido ayaa waxaa loo sameeyey maxaan ku rahdaa barnaamij ama mashruuc lagu ballaarinayo. ballaarintaasi ayaa laga qayliyay marka oo waxa ay maxaan ku rahdaa barnaamijkaas ku ahaa 5 sano kale inuu socdo oo lala wareego
dhul badan oo ku hareeraysan Addis Ababa ku hareeraysan waxaa ka kacay marka kacdoonkaas ka kacay kacdoonkaasina wuxuu socday ilaa iyo intii aad ogeedeen mataqaana ayuu socday oo isdaba yaallay muxuu ahaa isdaba yaallay oo marna emergency lagu soo rogay xogaa markii la joogeen haddana isbeddelkii u dhacay marka isbeddelkan markuu dhacayo waxaa hormuud ka ahaa dhalinyarada regionka Oromia ayaa hormuud ka ahaa waxaa isku xirma marka gudaha dadkii ahaa iyo dadkii dibadda isku xirma waxaa marka ay dalbeen isbeddel inuu dhaco dalabkaas marka ka yimid oo in maxaabiistaas la hayo la soo daayo dalku inuu isbeddelo la furfuro ayaa waxaa khalkhal uu geliyey codkaasi hoggaankii sareeto hoggaankii baa marka meel sanaawi meesha hadduu ka baxay sidii isu haystay iyo sidii loo xukumi jirayna way dabacday ayagaa kala jabay marka ay xisbigan OPDO-ga oo kasoo oromada ay mas-uulka ka yihiin hoggaankiisii iyo waxaa isku xirmay iyo shacbigii dooda qabay waa ogtihiin haddana waxaa ku xirma deegaanka xaaradan ayana waa laga kacay waxay taasi dhalisay marka gudaha in la raadiyo isbeddelkaasi wuxuu khalkhal geliyey Ethiopia oo dhan buu khalkhal geliyey waxaana dareenkaas uu galay hay-adaha kaleeto oo ka shaqeeya gobolka ka shaqeeya iyo wadamada maxaan ku rahdaa danta kale geeska Afrika kale ayagana dhaqdhaqaaqooda ma yareyn waxay noqotay marka xisbiga gudihiisii in la yiraahdo isbeddel waa inuu dhacaa waa tii ra-iisul wasaarihii uu iscasilay iscasilaadiisa marka waxaa ka soo baxay in loo tartamo jagadii loo tartamo Ahmed Abiy wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeen buu wuxuu ka ahaa Oromia ka ahaa tartanka markii la sameynayay dabcan isaga ma ka ahayn madaxweyne kama ahayn tartanka waxaa kaga horeeyay isaga oo kaga xoog badnaa ninka madaxweynaha ka Oromia oo aad shacbiyad aad u weyn qaba oo aad loo aaminsanaa oo la filayay inuu isaga noqdo qofka bedeli doono inuu noqdo laakiin waxaa isagana ku soo baxday cillad baa ku soo baxday oo ah ay qofka hoggaanka qabanaya oo EPRDF qabanaya oo hadhowtana noqon doona ra-iisul wasaaraha noqon doona waxaa loo baahday inuu xubin ka ahaado baarlamaanka federaalka ugu jira maaragtay marka madaxweynihii markaa wuxuu noqon karay waa aada loo hadalhayo la tirinayo inuu isaga noqdo meesha waa ka baxay wuxuu uga tanaasulay markaa ninkii ku xigay oo ahaa ninkan hadda caanka noqday ee soo baxay isbeddelkii oo gudaha hoggaanka ka dhacay wuxuu keenay markaa inuu inta meel soo joogsado wax aan la filayn inuu ku dhawaaqo ay maxaabiistii la sii daayey ballanqaadkii maxaan ku rahdaa siyaasadda la furfuri doono iyo wareegii uu ku sameeyey dalalkii gobolka gaar ahaan arrintii Eritrea ee dhulkii uu bixiyey maxaan ku rahdaa Masar uu tegey labada sac ugu daraa iyo annaga meelaha dhan kale uu soo maray Masarna waxay isku hayeen biyo xiraankii bay isku hayeen oo laga dhisaayay Ethiopia gudaheeda laga dhisaayay Eritrea dawladda dhulka isku hayeen waxaa hadda ka soo wareegatay waxaan dhamayn 6 bilood aan dhamayn intuu xukunka qabtay isbeddelka dhacay ilaa hadda waxaa lagu sheegi karaa waa isbeddel hoggaankii ku dhacay reer Ethiopia waxay sugayaan isbeddelkaas mirihiisa inay goostaan gobolkana waxaa laga sugayaa markaa bal isbeddelkaas siduu u saameeyana waa la arkayaa marka waxa hadda la hubo isbeddelka la hubo dhacay waa isbeddel xagga hoggaanka ka dhacay ay maxaa lagu qiyaasi karaa marka inuu isbeddel ka dhacay Ethiopia ka dhacay isbeddelka ugu weyn oo la filayo wuxuu dhici doonaa oo tijaabadana ay ka bixi doonaan waa 2020 2020 maxaa dhici doona waxaa dhici doona doorashadii baa dhici doonta waxay qabtaan 5 sanaba doorashay qabtaan 5 sano waxaa inta hadda ka harsan waxaa laga filayaa marka in hoggaankii cusbaa uu la yimaado isbeddelkii dalkaasi laga sameyn lahaa oo dimuqraadiyadiisa lagu soo celin lahaa jidkii dhabta ahayd saddex waxyaabood bay ka doodaan reer Ethiopia oo ay leeyihiin meesha laga saaro waxa diidayna in dimuqraadiyada laga sahlo mid waxay ahayd tan koowaad waxay ahayd waxaa la soo saaray xeerkan maxaan ku rahdaa doorashooyinka waxaa kaloo jiray iyadana maxaan ku rahdaa midkan loo dejiyey media ama warbaahinta loo dejiyey ka saddexaadna waxa weeye midka hawlaha hay-adaha samafalka
waa kuwa ugu horeeya oo maxaan ku rahdaa ka qaadistooda u badnayn doonto marka isbeddel dhaba marka waxaan ogaan doonaa Ethiopia 2020 inta ka horeysa waxa weeye gogol xaarki tallaabooyinka marka la qaadi doono waa inay haddana tallaabooyin oo dadka u xaqiijiya inay doorashadaas sidii lagu yaqiinay doorasho madax bannaan oo xor ah Ethiopia inay ka dhacdo taasaa marka waxay ku dooran doonaan hoggaanka dhabta ah imaan doona EPRDF weli iyada hadda dalka hoggaamisa waana isu tag weeye afar urur ay isu tageen ayagaa weli gacanta ku haya waxba iskama bedelin waxaa isbedelay kaliya ninkii madaxda ka ahaan baa isbedelay taas waxay u baahan tahay horta si fiican inaan isla garano sidee maxaan ku rahdaa looga faa'iidaysan karaa bay su-aasha labaad ahayd aniga waxay la tahay waxa annaga Soomaali ahaan na saameeya markaan usoo noqono annaga Ethiopia colaad dheer baa naga dhexaysay banaanka iyagoo naga joogaan colaad ay naga dhexaysay maantana waxay ku jiraan dalka gudihiisa ku jiraan dalka gudihiisa ku jiristiisa ay siyaasiyiinta jooga iyo aqoon-yahanka jooga waxay ka qabaan dood badan bay ka qabaan waxaa dowladdeena markaa ay tahay midda afka u noqonaysa dareenka shacbiga iyo waxa aan rabno mataqaanaa haddii ciidankan uu yahay ciidan noo soo gurmaday waa in iyadana dareenka shacbiga ay qabaan iyadoo la tixgelinayo laga arko isbeddel laga arko maarta waa waxa ugu horeeya na taabanaya annaga kilalka maxaan ku rahdaa dowlad deegaanka Soomaaliya kuma noolin Ethiopia gudaheeda kuma noolin halkaana ku noolnahay sagaashan iyo koodii wixii ka horreeyey colaadda naga dhexaysa waxay ahayd colaad xadka ku kooban maanta laakiinse Ethiopia waxay degan tahay Soomaaliya gudaheeda ku jirtaa meelaha kaleetana markay rabtay soo gashaa markay rabtana way ka baxdaa waa arrimaha u baahan in maxaan ku rahdaa aan ka faa'iidaysano si dan u ah shacbigeena Soomaaliyeed noloshiisa maanta raadinta uu raadinayo dowladnimadiisa uu dib ceshado dib usoo dhisto iyo mustaqbalkeennaba midda ku xiran waxaana mas-uuliyaddaas ay fuulaysaa waxa weeye xukuumadda haddeertaan jirta iyo hay-adaheena kale siyaasadeed oo jira baarlamaanka ugu horeeya mataqaanaa qolana saxan dahaba kugu siin mayso waxa adiga aada rabto waxa ummadda Soomaaliyeed ay rabto waa inay ummadda Soomaaliyeed ay ku sheegataa hay-adaheeda ku sheegataa waa lagala galaa adna taqaanid waxa aad rabtid miiska aad saartid adna soo dhacsatid maarta waa la timaadid maarta dabcan waxaan malaynayaa ma wada dhammayn karo waxaan hadda warqad baa lasoo hordhigay waxaan isleeyahay marka aniga waa wax u baahan inaan gadaal inta isugu noqono nidhaahno isbeddel waa u dhacay welina si fiican uma naqaano siduu yahay waxaan arki doonaa mirihiisa 2020 inta ka horeysana isbeddelada dhacaya waxaa la rabaa inay noqdaan kuwa qanciya shacbiga Ethiopiaanka qanciya annagana xiriirkeena diblomaasiyadeed oo aan la leenahay ay wax iska beddelaan mataqaanaa si ay isaga beddeli lahaayeenna waa mas-uuliyad dhammaanteena la saaran inaan ka sheekaysano ay noo furto wada hadal ay noo furto nidhaahno maxaan ka rabnaa horta hore isbeddelkan sidee annaga faa'iido noogu yeelan karaa xiriirkeenna haddeertaan xaggee la-yahay xaggee u baahan in la xoojiyo xaggee la-yahay mataqaana xaggee bu la-yahay oo loo baahan yahay in laga hagaajiyo doodaas annaga dhexdeenna haddaan shacbina haddaan bulshada rayidka nahayna aan kala xiriirno siyaasiyiintaan kala xiriirno siyaasiyiinteenna iyo xukuumadda jirtaana ay u rogaan middaasi mid siyaasadeed oo ay kula macaamiloodaan hoggaanka cusub ee Ethiopia ka dhashay annagana faa'iidaysaan sidaa ku helno waa mahadsantihiin laga helo gobolka inuu kusoo dabaalo amni gobolkaasna waxaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيء أنت سؤال أو شيء أنت كبعدي وحا آد wanaagsanay meesha la iga geliyo mujtamaca Soomaalida ama political class-keena markay meel isugu yimaadeen waxay ka hadlaan saas waxaan ka wadaa macnaha doodan ayada ah sida uu sheegay doctorka iga horeeyay siyaasadda markii aniga waxaan sheegay ima banaan ma aragtaa marka hawshu waa dhamaatay sidaas ay tahay marka dhaqanka meesha ku qoran wuxuu u dhigan yahay si academic ah oo waxaa la yidhi waxaad focus garaysaa regions ahaan
in laga digtoona in aad wacyi u leedahay waa noqon kartaa, to understanding inaad fahamtid waa noqon kartaa, awareness inaad ka feejiganta waa noqon kartaa, investigation inaad baaritaan iyo taxqiiq u samayso waa noqon kartaa, macno badan ay yeelan kartaa. Marka in aan leenahay soo jeed iyo mug iyo dhug amni oo aan gobolka geeska Afrika oo aan ku naalo waxa ka dhacaya raadka ay nagu yeelanayaan hadday tahay faa'iido iyo hadday khasaaro tahay, Soomaali haddaan nahay inaan isweydiino su-aashaas bixaddi daatiha ayaa faa'iido ah. Sababtu waxay tahay meesha aan maanta naalo Soomaali haddaan nahay, su-aashaas oo aanan isweydiin darteed ayaan god ku dhacnay. Anigu masterkaygii waxaan ku sameeyey 2 master aan sameeyey, laakiin mid ka mid ah waxaan ku sameeyey strategic and defense studies. Strategic and defense studies teesayguna wuxuu ahaa the Horn Africa's regional security framework, geeska Africa sida loogu sameyn karo amni gobol oo amni iqliimi ah sida loo sameyn karo. That was my master degree. aan markii aan dhameeyay, markii aan PhD-ga galayay ayaa macallinkii supervisorkii ahaa wuxuu dhahay markaan waxaa la joogaa haddii aad gobolka geeska Africa aad ka qortay teesihii, markaan waa inaad ka qortaa Soomaaliya. And then I did my doctorate Somalia's defense and foreign policy framework, yani siyaasadda gaashaandhigga iyo dibadda ee Soomaaliya oo ah national security core issue. Okay, fine. Hadday saas tahay markii aan yani intaas ardanimadaas aan ku jiray, waxaan ii soo baxday dad Soomaaliyeed oo fara badan waxay qabaan dalkaanu markuu dumayay inuu u dumay reer Qurac iyo reer Qansax inay ku dagaalameen. Laakiin xaqiiq ahaan reer Qurac iyo reer Qansax kuma dagaalamin, ee geeska Africa iyo meeshaan ku naalo caalamka oo geopolitic ah ayaan waxaan lagu sameyn ama hogaamadii dalkan ka jiri jiray waxaynan isweydiin realization, the Horn Africa's political realization, security realization, social realization, economic realization, obstacles and opportunities. And exactly arrinkan maanta aan u fadhino 2018 waxay ahayd Soomaalidu inay u fadhiistaan 1960kii July 58 sano ka hor ayay ahayd in su-aashaan la isweydiin. Su-aashaan oon la isweydiin darteed ayaan waxaan noqonay nin aan dabaal aqaaninoo doon ou saaray laga tuuro badda lagu tuuray, nin aan dabaal aqoonoo badda bartankeeda doon lagu tuuro meesha uu ku dhammaanayo waa taqaaniin, meeshaasaan ku dhammaanay. alla mahadiis galabta waa fursad taariikhi ah in aan isweydiino su-aalaha. taasi waa guud ahaan iyo kormar. haddaan hoos usoo daadego wax yaraan ku daraa, macnaa dabcan waqtigu waa yaryahay oo semesteraa lagu bixiyaa maadadan ama dhowr semesteraa lagu bixiyaa. su-aalaa taalo oo muhiim ah. doctorku wuxuu sheegay oo Baafe wuxuu sheegay isbedelka ka dhacaya Addis Ababa oo raad nagu yeelanaya in uu yahay isbedel ubucdiisu ay tahay xoog ka dhashay gudaha Ethiopia. laakiin su-aashaasaa waxaan rabaa inaan wax yar ku daro oo aan soo jeediyo dhaho xaqiiqa ahaantii isbedelka ka dhashay ama ka dhacaya Ethiopia oona bilow ah, weli ma dhicin isbedelkii, laakiin waa bilow. maxoog gudaha Ethiopia oo keli ah ka dhashay ayaa dhaqaajinaya oo caasimadda Addis Ababa ayaa intay yaraatay yaa in la waasiciyaa loo baxday, dhulkiyaa cariiri noqday. dabcan Addis Ababa 10 milyan oo Oromo ku wareegsan oo waliba Muslim ku wareegsan,
dispute iyo murunkii ka dhashay miyaa political dynamic isku bedelay mise waxaa jira other dynamics oo internal keliya ah miyaa jira mise waxaa jira intaba ma ahana intaan waa inta loo malaynayo inay tahay waxaa jira gacmo shisheeye oo isbedelka ka dhacaaya Addis Ababa xoog kalaa wada mise isbedelka ka dhacaya Addis Ababa xoog gudaha Ethiopia ka jira iyo xoog kale oo dibadda ka yimid oo iskaashaday ayaa wada. That is the question. Markaasaa waxaa soo baxaya suurad dhammaystiran. Haddii aan ku koobno marka hal weji oo keli ah qaybo kale ayaa naga dhumaaya. Markaasaa waxaan noqonaynaa nimankii taabtay maruudiga indhoolayaasha oo ninba meel ka taabtay. Marka ninba meeshuu taabtay marka aan isku darsana ninba marka meeshuu taabtay aan isku darsana. Marka meesha waxaa ku jira marka actorska marka actors luqada marka oo laga hadlayo calaqaadka dawliga waxaa la dhahaa kubadda yaa cayaaraya. Who are the real players? Dadka qaarna waa daawanayaan, qaarna waa cayaarayaan. yaa cayaaraya waa markaad ogaatid playerska su-aal kalaa timaada haddana oo ah okay way cayaarayaan oo cayaaraa socota laakiin muxuu yahay objectiveka strategic objective haddana waxyaaba badan laga hadlay laakiin strategic objective waxyaabaha dowladnimada iyo siyaasadda caalamka u muhiimka u ah haddana maxay yihiin ayadoo la og yahay mandiqada inay ku taalo geopolitic taariikhdaa sheegaysa oo weliba geopolitic in the Horn Africa keliya ma aha ee waxaa haddana saaran another geopolitical region oo ah Arabian Peninsula haddana waa saaran yahay. haddana su-aal waxaa haddana linkiga ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya what's going on the Arabian Peninsula or the Gulf countries or Arab world and the Horn Africa linkiga ka dhexeeya haddana forces kaasu oo isla shaqaynayo strategic interestiga leeyahay haddana muxuu yahay markaas oo haddana yani playerska markaad ogaatid haddana strategic interestiga markay leeyihin markaad ogaatid ayaa markaasa waxaa ku soo baxaya suuro ay macquul tahay inaad fiirisid obstacles macnaha taxadiyaad qofka carabiga yaqaana iyo opportunities iyo furas qofka u yaqaano markaasaa kuu soo baxaya markay suuradda kuu muuqato ayaad waxaad dhihi kartaa awalne inta aanad manfaco raadin waxaa laga shaqeeyaa to minimize the risk khatarta inaad iska ilaalisid liannu janji hadduu dhacaayo oo isbedel hadduu dhacaayo waa transformation waxbaa meel yaalay way ka tegayaan meel kalay tegayaan waa la guuraya guuritaankaasi wuxuu ahaan karaa ideological oo marka ugu horeeya midka ah fikir wuxuu ahaan karaa structural system wuxuu ahaan karaa security system wuxuu ahaan karaa economic system many forms ayuu ku imaan karaa janjiga uu ku imaan karaa marka haddii aadan comprehensive reading oo isticaab shaamil xawla majrayaati lumuur haddaadan lahayn mar kale ayaa doonta haddana ku dhacaysaa oo badda ku dhacaysaa ma dhihi kara haddana 58 sano oo kale haddana nagu soo wareegaysaa ilaahay kama dhigo insha allahu waaba la iisoo gudbiyey 3 daqiiqo laakiin waxaan u dhaafaa anoo iska dhigaya nin deeqsi ah ninka iga dambeeya si aan hadhowto haddii su-aal timaado aan dadka u siiyo marka waaba soo koobaa waa maasan loo soo daadegay sheekh waayahay oo diintan wax waa laga weydiin karaa hadda waxaan u leexanaynaa markii aan amniga ka hadalno oo siyaasadda ka hadalno amniga ka hadalno runtii waxaa wax wada saameeya ayaa dalkeena Soomaaliya uu keeni karaa arrinkaa waxaa noo qaada dhigayo xildhibaan Dr. Cilmi Nuur oo ka hadli doono ma ka dhici kartaa mana keeni karaa waxa la yiraahdo isdhexgal
dowladaha jira dhan ay qaataan inay taariikhdii hore colaada iska ilaawaan oo qolo walba ay ogolaato inay xaqa midka kale ay ixtiraamto saa markaa ma dhalan karaa dadkan oo ku dhow boqolaalka milyan oo ku nool geeska Africa. waxaan isleeyahay waa mawaadiic loo baahan yahay marka hore aad baan u salaamayaa baan u bogaadinayaa mawaadiicdaas ay ku bilaabantay waxaan u rajaynayaa inay muxuu ahaayey guul iyo horumar iyo iftiinin fara badan ay markaasi ku soo kordhiyo muxuu ahaayey dalka iyo shacabka Soomaaliya runtii mawduuca la isiiyey waa mawduuc aad u ballaaran sidii asxaabtii iga horreeyay oo aad moogtayga ka warrameen runtii isma laha mawduuca iyo waqtigu isma laha marka meelo kooban baan runtii wax ka tilmaami karaa marka hore dabcan markii dhaqaalaha geeska Afrika sidee uu markaa u saameynaya isbeddelka dhacaya sidee uu u saameyn karaa muxuu ahaayey bulshadeena iyo dalkeena iyo dhaqaalaheena iyo nolosheena waa arrin aad iyo aad u muhiim ah marka laga hadlayo muxuu ahaayey interrelationship moogta economic markaasi policies-ka laga hadlayo waxa weeye waa trade-ka weeye international trades-ka laga hadlayo marka isku socodkii iyo wax soo saarkii iyo kala bedelashadii wixii baa laga hadlaya laakiin dal gudihii marka laga hadlayo de waxba moogtay ma khusayso adduunku si aad u ogeydeen moogtay intii ka dambeysay sagaashameeyadii waxaa la galay globalization baa la galay trade-ka iyo isku socodka iyo wax soo saarku wuxuu noqday wax global u noqday oo adduunyadoo dhan moogtahay marka waxa laga soo saaray China iyo waxa adduunka meesha ugu fog laga soo saaray oo muxuu ahaa koornaha kale adduunka u tagay oo adduunkii isku socodkiisii dhaqaalo oo markaasi aad loo fuday ha noqoto guuriskii alaabtii la soo saaray ha noqoto muxuu ahaayey financialkii iyo capitalkii lafteedii ha noqoto labadaas saaso capitalkii raysamaalkii wax lagu soo saaray iyo muxuu ahaayey guuriskii alaabtii services la soo saaray waxa weeye wax la kala bedelanay iyadoo uu fududeeyay technology-yada iyo horumarka muxuu ahaayey runtii lagu tallaabsaday oo imika wax walba aad online ka iibsan karto oo koornaha adduunka yaala runtii iyadoo taasina ay fududeysay marka wuxuu noqday global village buu noqday marka adduunka inaad commodity kastoo laga soo saari karo ama muxuu electronic kastoo meel kale laga soo saarayo inaad markaaba ka dalban karto adoo gurigaagii hor joogo marka horta controlkii badnaa ee adduunka berigii hore ka jiray barrierka ahaa runtii waxaad moodaa inuu xilligii ka dambeysay sagaashanadii ama technology-yadu ay moogtahay ay horumartay ama muxuu ahaayey jariirkii isku socodkuba ay horumareen inuu isbeddel baaxad leh oo ku dhacay waa tasawursan kartaa sagaashankii ka hor markii dunidu internet aanu jirin sidee baa loo noolaa dadka qaarkood inay isweydiiyaan marka isbeddelka uu ku sameeyey intuu leeyahay baad muxuu ahaayey aad garan kartaa marka haddaynu ka hadalno isbeddelkan markaa geeska Afrika dhowr arrimood baa u baahan inaynu moogtay ka tilmaano wax ta ugu horreysa waxa weeye xagga isku socodka moogtahay nidaamka dhaqaalaha adduunka ee guuriska iyo alaabta isku socodkeega maxaa moogtahay xeerarkee maxaa ka jira conceptiyada ka jira maxay yihiin dalalku waxay yeelan karaan horta sidiisaba dal kastaaba alaabtiisa isaga u madax bannaan inuu cashuurta intuu doono ka dhigi karo dalkuu doonana u dhoofin karo inuu kuwa muxuu ahaayey iman karana uu cashuurta intuu doono saari kara isaga u madax bannaan laakiin ogow intaad adigu cashuur saartuunbaa adduunkana muxuu ahaayey ku saaraya siaad adigu albaabadaada u xidhatuunba adduunkana u xidhan karaa marka imika China iyo Mareykanka iyo Europe iyo Mareykan waxa kala haysta iyo muxuu ahaayey muxuu ahaa Turkiya iyo Mareykan waad garan kartaa arrimahaas wey xilligan isaga ah waxaad moodaa diblomaasiyaddii majority-geedii waxay isku beddeshay inay noqoto xagga muxuu ahaayey ganacsiga isku socodka alaabta oo imika wasaaradda arrimaha dibadda iyo ganacsiga waa la israacshaa inay muxuu ahaayey ay noqoto wasaaradda arrimaha dibadda mid u adeegta horumarinta ganacsiga dalkaas marka haddaynu usoo noqono halkan horta waxaynu ku jirnaa muxuu ahaa levels kala duwan baynu ku jirnaa levelska kala duwan aynu ku jirnaa waxa weeye concept ahaan dalku waxay yeelan karaan inay moogtahay preferential muxuu ahaa trade system ay yeelaan preferential treatment baa la yidhahdaa inay iyagu iskaashi moogtahay waxyaabaha qaarkood iska cafiyaan Kenya iyo Soomaaliya isku xigta marka inay moogtahay guuriska ka yimaada Kenya inay moogtahay cashuurta laga khafiifiyo ama si gaar ah loola macaamulo oo tacaamul gaar ah oo labada dal ka dhaxaysa ay sameysmaan waa mid weey waa meesha laga bilaabo weey waxa kale oo markaasi ku xigi kara inay sameeyaan free trade area meelo ay moogtahay alaabta isku dhaafsaan oo moogtahay si xor ah ay markaasi muxuu ahaayey u sameystaan ayaa muxuu ahaayey dhici kara waana markaasi way ka sii muxuu ahaa qoto dheer tahay taa hore custom union bay sameystaan inay muxuu ahaayey isku geeyaan muxuu xagga moogtahay alaabta kastamada ka soo degaysa inay isku siyaasad ay muxuu ahaayey ay ka noqdaan iyada lafteedu waxay ka mid tahay waxyaabaha moogtahay la sameeyo
waxaa kaloo noqon kara markaasi kadib inay policieska xagga financialka iyo fiscal policieska arrimaha ay moogtay xagga kharashka iyo bangiyada iyo maamulka maaliyadda iyo waxyaabahaas inay iskaashi ka sameeyaan maxaa yeelay inflationka dalkan ka dhacay ama sicir bararka halkan ka dhacay saameyn buu ku leeyahay dalka kugu xiga moogta ku leeyahay waayo alaabtaadii qiimaheegii buu jebinayaa tii dhinaca kalena uu qaali garaynayaa markaasi maxay noqonaysaa in alaabtaadii ay suuq hesho tii muxuu ahaay waddanka qaaligaa ka timidayna alaabtiisu qaaliga tahayna ay socon weydo marka xitaa sicir bararadu saameyn bay ku leeyihiin oo dhinacyada xagga siyaasadda maaliyadda iyo xagga kharashaadka lafteeda waxaa laga yeeshaa heshiis baa laga yeeshaa marka inagu siyaasad baa jirtay guud oo Africa oo dhan ay ku socotay oo markaasi muxuu ahaay milestones leh muxuu ahaay xilliyo moogtahay la baa jira oo ah in la xoojiyo muxuu ahaay custom unionska jira ama moogtay communitieska iyagu isku tagay muxuu ahaa dhaqaalahoogii wax ka mideeyay in la xoojiyo lafteedu siyaasad ayay muxuu ahaay ka mid ahayd oo arrimahaasi runtii muxuu laga shaqeeyo waxaa kaloo markaasi muxuu ahaay ka mid ah in free trade area la kordhiyo oo muxuu ahaay meelaha moogtay waxa community-yada haddaad moogtay xasuusataan community-yo fara badan oo Africa jiro Africa waxay ku socotaa inay moogtay gebigeeduba dal kaliya hata noqoto passport ku dhaqaatay common market ay noqotay marka Africa oo dhan ay ku jirtaa waxa sameysmay Arab moogtay Maghrib community baa sameysmay oo moogtay custom union leh waxaa jira moogtay saaxilan Sahara moogtay Sahara ayaa iyaguna jira markaas common market East Africa oo COMESA oo iyaga lafteedu aan ka mid nahay ayaa muxuu ahaa iyaguna waxaan ka samaysan East African Community oo wadamadan muxuu ahaa bariga Africa hore u jiray oo Kenya iyo Tanzania wadamadani hore u jireen Central Africa Community baa jiro iyaguna muxuu ahaa nooc moogtay iskaashiga noocaas oo kale leh waxa ku jira muxuu ahaa IGAD waxay ka mid ahayd wadamada marka iyaguna saas oo kale muxuu ahaa leh common cause agenda maadaama ay development ay ka hadlayaan in integration sameeyaan oo moogtay isku yimaadaan iyay ka mid tahay West Africa jirta South Africa iyo wadamada iyaguna saas oo kale leeyihiin marka policyga Africa waxa ka mid ahaa in siyaasadda isku keenida dalalka iyo dhaqaalaha mideyntiisa in la xoojiyo taasina loo sameeyo muxuu ahaa siyaasad ku jaan go'an ilaa 2023 ku jaan go'an oo markaasi level kala duwan leh oo la sameyn doono markaas in muxuu ahaa market kaliya ay Africa oo dhan ay wada yeelato suuq kaliya ay noqoto passport midaysan ay yeelato marka muxuu ahaa taas ayaa jirta ka soo bilaabantay muxuu ahaa 1994 ka soo bilowday laga soo bilaabo oo marka inay central bank kaliya xitaa samaysato oo muxuu ahaa common multi currency yeelato sida moogtay Europeanka arrimahaas oo dhan baa jiro socda oo ilaa 2023 muxuu ahaa qorshaheega la wado hadda Pan Africa maxaa Parliament of Africa baa samaysan oo passport kaliya hata saasay markaa ku sii soconaysa agendaas waa jira inaga kan geeska Africa gaarkay noo khuseeyay waa muxuu ahaa waa tan IGAD way oo khaasatan Ethiopia iyo muxuu wadamada jaarka ay muxuu ahaa siyaasadda isbeddelkan saameynta uu ku yeelanay taasina waxay moogtay runtii dadku moogtay baahida dal walba wax buu moogtay u leeyahay comparative advantages baleega dal kastaba wax buu qani ku yahay oo kaga hormarsan yahay ama kaga wanaagsan yahay inta kale oo kaga wanaagsan yahay Soomaaliya waxay ku faantay ugu weyn muxuu ahaa kaga duwan tahay wadamadan kale ee geeska Africa waxa way xeebteeda ballaaran iyo kalluunka badda ee markaas muxuu khayraadkeeda badda ee aanay haysan wadamada kale ee muxuu ahaa runtii jaarkeeda taa marka waa comparative advantage waxaan dheernahay marka wadamada kale ee muxuu ahaa geeska Africa marka dhinaca marka laga eego waa moogtay waa khayraad badan oo markaas aan dhoofin karnaa marka meesha ku jira oo siin karo mar hore waxa la yiri moogtay hoteelada ku yaala Addis Ababa haddaad muxuu ahaa Soomaaliya oo dhan ay kalluumaysato noqoto waxa laga yaabaa baahida hoteelada Addis Ababa ku yaala kalluun ay u baahan yihiin inaanan buuxin karin taas baa muxuu ahaa macnaha marka qaarkood la isla soo qaad marka haddaynu taa moogtay ka faa'iidno waa moogtay waa faa'iido weyn waxa kale oo muhiim ah oo adduunka imika trade-kiisa ah sidaad ugu dhowdahay meelaha wax soo saarka sidaad ugu dhowdahay marinada adduunka ee muxuu ahaa ganacsiga la moogtay la maro taasi waxay ku siinaysaa comparative advantage kale oo aad dheer tahay muxuu ahaa wadamada kale marka marinada adduunka la maro oo dhan marka waxa muddo Soomaaliya ay markaas ay ku xeersan yihiin inteeda badan ama marinada ganacsiyada ugu waaweyn adduunka Soomaaliya ku xeersan yihiin marka maadaama aad taa haysatana inaad dekedahaagii iyo marinadaadii Afrika inteedii kale u furtaay waa advantage kale oo aad leedahay ismarfuurka aad leedahay
dhinaca marka dhaqaalaha laga eego waxa weeye consumptionka wadamada aad moogtay u dhoofinaysa Ethiopia oo kale oo 100 iyo ilaa 10 milyan hadda lagu qiyaasi karo wadamada igad markii la isku daro waxa la yiraahdaa waa 280 milyan bay ku dhow yihiin dadku Ethiopia muxuu ahaayay Eritrea iyo Djibouti iyo muxuu ahaayay Suudaan baa markaas muxuu ahaayay Kenya ayaa markaas bad kale laakiin dhinaca kale bad ma laha innagaana meeshii marinkii ugu waaweynaa innagaana muxuu ahaayay degan marka waxay noqonaysaa suuq weyn oo ganacsi oo muxuu ahaayay inay warshadihii caalamka China muxuu ahaayay loo doonanay inay xeebaha Soomaaliya iyo magaalooyinka Soomaaliya ka samaysmaan maadaama guuriskii iyo raw materialkii caalamka oo dhan si degdeg loo gaarsiin karo waa arrin suuragal ah in halkan manufacturers iyo moogta iyo muxuu ahaayay xitaa Djibouti waxay ka faa'iideysatay waa moogta waa advantage ka maxay strategically meesha ku taala muhiima aad waxa markaa hadda uga faa'iideysay waa Djibouti weeye oo xitaa shipping industry oo dhan inay halka ka samaysay meelihii muxuu ahaayay lagu sii muxuu ahaa guuriska lagu sii kala wareejinay iyo free trade zoneski waxyaabahaas oo dhan waa advantage taas Soomaaliyana way yeelan kartaa marka waxaan isleeyahay xagga dhaqaalaha markii laga hadlo Soomaaliya waxay dheer tahay macnaha wax aad u weyn bay dheer tahay muxuu ahaa wadamada kale jaarkeena waana ka faa'iidi kartaa laakiin ta muhiimkii waxa weeye waxa jira oo ay wadaan isku socodka dadka maxay taasi keenaysaa bulshadii inay isku socoto marinadii in la soo maro hadda imka igad lafteedu waxay wadaa siyaasadda isku socodka wadamada igad Soomaaliya ay wadaa oo in wadamada isku socdaan dadkii isku socodkaasi muxuu keenayaa taasi waxa laga yaraa implication badan oo ragabka ay ka hadleen muxuu ragab kale ayaa moogta ay suuragal tahay marka sidee baad as a country sovereignty-gaagii siyaadadii dalnimo iyo muxuu ahaay khusuusiyaadkii muxuu ahaa dalahaanad oo muslim oo moogta halkan ku nool Soomaaliya iyo identity-gaagii sidee baad u ilaalisaa at the same time sidee baad uga faa'iideysataa muxuu ahaayay wadooyinka waaweyn iyo advantage-ka ama muxuu ahaayay faa'iidooyinka faraha badan ee runtii ku xeersan waa mid muhiim ah marka isbedel nabadgelyo oo ka dhashay oo xagga development-kii dhaqaalaha u socdaay oo Ethiopia 7% ilaa 8% ama marka qaarkood ilaa 11 bay gaadhaa ayay dhaqaalaheedu ku korayaan macnaha wadamada ugu kororka badan leh dhaqaalaha weyn 100 iyo ziyaado milyan oo dhaqaalaheegiisa u korayaay baahidoodu way sii laabaysaa mar walba marka sii dambaysa marka sidee baan ula jaan qaadnaa waa muhiim taas waxay nagu soo celinaysaa sidee baan gurigeena dib iskugu soo celinaa siyaasad midaysan aan kula jaan qaadnaa muxuu ahaa wadamada kale geeska Afrika waa mahadsantihiin sababtoo ah marka hadda dhinaca xoog waxa lagu soo qaban karaa oo isbedelku wanaagsanaan waayo marba haddii oo lacagtii iyo dadkii wiilashii gabdhaha la isku guurinayaan gobolada sidaa isdhexgalaya oo mada kala cararaya mase waa la soo dhaweynaya maanta waxaan u leenaha Soomaali gaban aan qaadin la qaybina aqoonyahanka iyo dhalinyarada aan dareemayo ay aad u xiiseynayaan waxaan ka gaaranayaa mawduuca laftiisa oo dhinaca siyaasadda oo ku bilaabay Dr. Baafe laakiin ay ka horeysa dhinaca bulshada inay isbedel samayso waxaa keenay isbedelka siyaasadeed waxaa keenay isbedel bulsho oo ka dhacay geeska Afrika markaan ka hadlayno bulshada degta waxaad ogtihiin waxaa laga maarmaana inaan ku waxaad garanaysaan dadka degan oo shucuubtaahi waxaa la yiraahdaa 80% waxay ka soo jeedaan jinsigan ama asalka la dhaho Kushit 20%na waxa weeyaan dadka la dhaho Bantuga ama ka yara duwan oo Zinjiga dhinacaas la dhaho waxaa lagu qiyaasaa ama la yiraahdaa 80% waxay degan yihiin dhulkan buuraleyda murtaficaadka loo yaqaano 20%na waxay degan yihiin dhulkan ballaaran oo baxsan oo badaha iyo xeebaha leh 20% waa muslim 70%na waxaa la yiraahdaa waa Christian 10%na haday qiyaastu saas tahay waa cawaam ama waa dad aan lahayn muxuu ahay diin aan lahayn
markii sidaas loo fiiriyo ama sheegashada loo fiiriyo nolosha markii la fiiriyo ama ay ku nool yihiin ama hadda ay yihiin waa mandiqada adduunka markii la qiimeynayo ugu faqrisan ama dadkeedu ugu hooseeyaan xagga dhaqaalaha iyo nolosha ayaa lagu qiimeeyaa laakiin way sii kala horumarsan yihiin oo waxaa la yidhaahdaa boqolkiiba 20 dadka degan xeebaha ayaa roon oo haysta dhaqaalaha mandiqadaas boqolkiiba 8 say ku haystaan kasoo bilow Zanzibar kusoo xeji Mombasa iyo xeebahaas ku xeji Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea iyo dhulkan ay dadkaas u degaan waa dhulka ugu xoolaha iyo beeraha iyo badaha iyo ganacsigaba badan intaas markii la fiiriyo dhulalka dadka degan oo buuraleydahi noloshoodu waa sii liidataa markii xaggaas loo baxo ama la qiimeynayo nolosha dadka sidoo kale horumarka iyo ilbaxnimada iyo waxbarashadana waxaa aad ugu badan dadka boqolkiiba 20 oo ama islaamka haysto ama haysto dhulkan degan xadaaradda iyo horumarku ay ka samaysmeen dhulkaas kale dadka degan waa xiran yihiin waa dhul aad iyo aad u xiran oo aan aad loo gelin markaad tagto waad arkaysaa Kenya oo kale dadka xadaaradda iyo horumarka iyo xataa dhaqaalaha badan waa dadka xeebaha dadka kale kullama aad xagga sii aado noloshooda waa sii adkaanaysaa ama way sii liidataa dadkan marka isticmaalka wuxuu kala dagaalay oo mushkilad badan ka haysataa 4 arrimood oo inay isdhex galaan hortaagan ayaa jirto looguna talagalay inay saas ahaadaan laakiin hadda aan rajaynayno isbeddelka hadda dhacay inuu wax ka bedelo midda koowaad waa arrinta ku saabsan dhaqanka iyo diinta dadkaasi ma gaarin heerarka bulshooyinka kale oo caalamku ay nool yihiin oo ah inay isdhex galaan kala guursadaan wax isla cunaan dhaqan isku darsadaan diin isku darsadaan intaba ma gaarin xataa sida ay u nool yihiin bulshooyinka caalamka oo mararka qaar ay dhici karto meelaha wadamada ay ku nool yihiin kiristanka iyo muslimiintu sida ay isu dhex galeen ama ay u wada nool yihiin ama ay u kala ganacsadaan ama ay u kala guursadaan ama ay u wada nool yihiin uma noola markii la yiraahdo ama la qiimeynayo bulshada geeska Afrika marka waxay yiraahdaan isdhexgal koobaad caqabada hortaagan ama ay suurtagal ahayn waa diinta iyo dhaqanka sidaas darteed ayaa ilaa hadda markaad aragto waxa aad u kala faanayaan ama suurtagal aysan ahayn geeska Afrika dhaqankooda ay ku adag yihiin diintan ay ku adag yihiin marka inay kala guursadaan suurtagal ma aha xataa kuwa islaamka ayaan mararka qaar kala guursanaynin oo qabiil iyo dhaqan iyo usii kala qaybsan marka waa caqabada koobaad waxaa la yiraahdaa haysato shucuubta geeska Afrika inay isdhex galaan u baahan heshiisiin in loo sameeyo arrinta dhaqanka iyo arrinta diinta qodobka labaad waxa weeyaan arrinta dhaqaalaha iyo nolosha laftirkeeda waxaa aad uga jirto markii bulshada la yiraahdo dabaqad muxuu ahay kala sarreysa xagga nolosha iyo xagga arrimaha bulshadaba kala sarreyso sidaas darteed way kala duwan yihiin dhaqaalaha laftirkeeda oo weli bulsho iska daba timid oo xagga nolosha iyo xagga dhaqaalaha iska daba timid ma aha arrinta labaad afraad oo muxuu ahay saddexaad oo hortaagan waxaa weeyaan waa arrinta siyaasadda bulshada waxaad arkaysaa ayagoo isku mid ah ayaa isticmaalkii wuxuu u sameeyey dowlado kala duwan iyo xuduudo kala duwan saas darteed ayaa loo kala googooyey waxaa arkaysaa kasoo bilow bariga ugu shisheeyo Zanzibar iyo Mombasa iyo in la kala gooyo markii hore ayagoo isku xuguma ayagoo isku dada ayagoo isticmaalka u yimid saas darteed ayuu kala gooyey markaasoo wuxuu ku kala daray dad muxuu ahay aan isku diin ahayn annaga Soomaali ima waa aragteen sida loo kala gooyey oo noogula kala daray afar xuduudoodna loo sameeyey iyo afar dawlo
oo sidaas nolo kala dambeeyey saas u wad cafarta saas oo kale dhibaatadaasaa haysato ilaa muxuu ahaay waxay haysataa tigraygay haysataa oo eritrea iyo etoobiya ku kala jiro waxay haysataa bani caamir oo suudaan iyo eritrea ku kala jiro halkaas imow ilaa muxuu ahaay booranta iyo imow ilaa kenya iyo xuduudahan isticmaalka wuxuu u sameeyey inuu habkaasna u kala googooyo marka taasna waa caqabad siyaasadeed oo dadkaas kala haysato oo xuduude ayagoo walaale ee hadda waa arkayseen markii ugu dambeysay sida ay eritrea markay kala go'naayeen 20 sano oo hadda la isku furay iyo etoobiya sidii dadkii isu hiloobay ama qaraabada ahay ama ahalka ahay oo 20 sano kala go'naay hal mar markay isku faqadeen marka taasna waa arrin u baahan mushkiladda xuduudahaas haddii loo helo dadka isle ama inay isdoontaan ama inay muxuu ahay kala faa'iidaystaan arrinta kale waxaa weeyaan waxaa aad ayaduna caqabad u ah oo aysan lahayn ilaa hadda hal luqad ama hal system oo isticmaalka waxbarashada iyo horumarka lagu gaaro oo wadamada waaweyn hadda horumaray ay ka gudbeen ama ay samaysteen caqabadaha ama xawaajiska dadka kala dhex geli karo sababtu waxaa weeyaan luqadii waxay furo u tahay tacliinti haddii qayb ka midihii ay faransa tahay haddii qayb ka midihii ay tahay bahalkii muxuu ahay british tahay hadday qayb ka midihii ay tahay isticmaalkii qaybo kala duwan ay tahay qayb ka midihii ay carab tahay qayb ka midihii ay xagga raacdo ayaduna waa caqabad kale oo isdhexgalka dadka iyo bulshada aad iyo aad ugu noqon karo caqabad ugu noqon karo sidaas darteed bulshada degan geeska africa waxay aad iyo aad hadda ugu ooman tahay inay hesho xurriyad iyo isdhexgal dhinaca ku saabsan thaqaafadda iyo dhinaca ku saabsan muxuu ahay horumarka iyo dhaqanka waxay u baahan tahay oo kale oo bulshadaas aad iyo aad loogala dagaalamay khayraadkeeda inay ka faa'iidaysato si ay u hesho nolol la sima midda adduunka sidaas darteed ayay waxay tahay mandiqadaasi mandiqada ugu hijrada badan hadda iyo nusuuxa markii la yiraahdo caalamka waxa weeyaan mandiqada markii la fiiriyo xagga xurriyadda iyo kala qoqobka iyo dhibaatada dadka ku nool adduunka safka hore uga jiray sidaas darteed ayaa waxaa keentay isbeddelkan markii ugu horeysay inay dadka dhalinyarada ay ka kacaan teknolojiyada hadda jirta ka faa'iidaystaan ay aad iyo aad isbeddel u sameeyaan sababta marka etoobiya ay hormuud ugu tahay isbeddelka halka dowladahaas kale markii la isku daro lixdaahi ay 200 ka leeyihiin ayay ayadu 100 milyan leedahay iyo dheeraad sidaas darteed ayadu waxay u tahay liid garaynaysaa muxuu ahay isbeddel ka dhaco sababtu waxaad ogtihiin annaga 60kiina waxaan samaynay isbeddel dimuqraadiyada iyo xurriyada dadku inay sameeyaan mandiqada maadaama uusan ka dhicin kenya waa socon waaye waxaa la isku daysaday markii dambe inqilaabyadii iyo nidaamkii muxuu ahay dictatoriga ah kadib haddana markaan bilownay 90kii haddii midka annaga naga dhacay ama sidaynoo kala mid ka mid ah oo ka dhici lahay mandiqada waxaad moodi lahayd inay saameyn lahaayeen sidoo kale kenya oo ilaa isticmaalkii uu ka tegay dimuqraadi ahayd way saameyn weysay mandiqada laakiin etoobiya hadda waxay ku saameynaysaa oo ugu muhiimsan tirada iyo mowqica ay ku taalo iyo saaxiibada ay leedahay annaga soomaali ahaan 3 fursadoodaan haysanaa oo aan uga faa'iidaysan karno isbeddelkaas dhanka bulshada ah bulshadaynoo firfircoon oo ka duwan markii la fiiriyo bulshooyinka dega geeska africa ugu firfircoon ugu ilbaxsan ugu muxuu ahay la dhihi karo hadda markii la fiiriyo inta annaga wax baratay waxaa laga yaabaa inay yar yihiin ama inta ilbaxdaahi adduunka tagtay inay yar yihiin laakiin tiradayna markii lagu dhifto ma jirto meel heerkaas gaarto ama heerka aan gaarsiisanahay gaarsiisan ma jirto markii tira ahaana loo fiiriyo sidaas darteed dhinaca firfircooni waa ka faa'iidaysan karnaa waxaan ka faa'iidaysan karnaa oo kale oo annagu aan leenahay risaala ama diin ama qiyam oo ay san lahayn dadka kale ama ay ku adag tahay dadka kale inay yeeshaan waxaan leenahay oo kale xiriir la leenahay ama aan ku xirannahay geeska africa shucuubtan la yiraahdo ama bariga africa isku daray
iyo waxaan xiriirinaa caalamka carabta ama bariga dhexe oo muxuu ahay ay ka timaado ama ay ku xiran tahay ama bariga Asia iyo wadamadan hadda horumarka looga daysanayo ayaan xiriirinaa sidaas darteed xiriirkaas wuxuu noo fududaynaa inaan u gudbino wax allaale wixii ganacsi ha noqoto aqoon ha noqoto horumar ha noqoto wuxuu noo sahlayaa ama noo fududaynayaa inaan u gudbin karno sidaas darteed isbeddelka ka dhacay geeska Afrika fursad weyn ayuu noo yahay Soomaaliya haddaan nahay aad u mahadsantihiin waqti badan ma haysano waxaan ka bilaabaynaa sidii isugu xigeen oo ah siyaasadda waxaan maanta siinahayaa Cabdullaahi بسم الله الرحمن الرحيم waxaa muhiim inaan fahanno isbeddelka dhacay ubuucdeedu waa halkee waa Ethiopia maxaa ka dhacay Ethiopia markaan rabno inaan fahanno maxaa dhacay sidee bay ahayd ayaa ka horeysa Ethiopia xisbi EPRDF la dhaho ayaa 1991 qabsaday laba falsafad ayuuna ku dhisnaa qodobka koowaad wuxuu ku dhisnaa waxa la yiraahdo ethnic federalism oo ah qowmiyado in loo maamulo waddanka laakiin qowmiyadahaasi si dimuqraadi ah waddanka uma maamuli jirin waxaa jiri jiray wax la dhihi karo inclusive authoritarian dadku iyagoo qabaa'il ah ayaa si dictatorial dadkooda loo xulinayay marka xisbiyadaas ayaa wax maamulayay marxalo ayay soo martay intii Mala Zanaawi waddanka joogay nin adag ayaa hayay 2000 markuu dhintay kadibna farahay ka baxday faraha markay ka baxdayna waxaa bilaabatay in isku dhaxyaac dhaco isku dhaxyaacina wuxuu keenay in xadgudubyo xoog leh ay Ethiopia ka dhacaan Ethiopia waxaa ka dhacay 10 sano la soo dhaafay Holocaust hadday bini'aadmi la xasuuqay jiro taariikhda geeska Afrika Ethiopia ka dhacday torturing dadka sida loo gumaadayo loo jirdilaayo loo kufsanayo loo ciqaabayo xuriyatul qowlka loo dagaalamayo midiyada loo controlayo waxaa ka dhacay wax aan runtii si sahla loo describe gareyn karin taa waxay keentay marka dadku inay kacaan kacdoonkaas marka wuxuu lahaa laba dynamic ayuu lahaa mid waxaa weeye waa ethnicism waxaa weeye qabaa'ilkii maadaama dowladnimadu ay federaalku ethnic ahayd Oromo Afar Soomaali sidaas oo kale qowmiyadihii way kaceen oo waxay arkayeen qowmiyad yar oo boqolkiiba 6 waddanka oo muddo dheer iyada awood haysata dhinaca kale dadku waxay dalbanayeen social justice marka xuquuqdii lagala dagaalamay ganacsigii lagala dagaalamay xurriyaddii lagala dagaalamay wax dhaqaaqa la waayay dadku waxay dareemeen marka dhinaca kalena si xuquuqi ah ayay u dagaalamayeen kacdoonkii markuu kacay marka waxaa laf dhabar u ahaa kacdoonka dambe Oromada waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq la yiraahdo the Qero movement oo marka af Soomaaliga loo bedelaa dhaqdhaqaaqa dhalinyarada dhaqdhaqaaqaasi wuxuu abuuray revolution almost kacdoon wuxuu abuuray waddanka inuu bedelo ku dhawaaday kadib waxaa dhacday markii halkaa marayso waxaa lagu qasbanaaday in la manage gareeyo marka Ethiopia waxa ka dhacay waxaa la dhihi karaa manage revolution waa isbedel la maareeyay ma aha mid dhamaystiran ma aha si loo maareeyo marka waxaa dhacday afar xisbi buu ka koobnaa xisbiga Oromada ka Amxaarada ka Tigreega iyo axzaabta qowmiyadaha koonfureed ee isbahaystay waxay ka kooban 180 min 9 ah iyo 36 golaha fulinta ah waxaa dhacday marka Oromadii oo dhan way israacday waxaa kaloo raacay Amxaaradii intii kalena waa lagu dagaalamay marka waxaa dhacay split baa dhacay waxaa weeye maadaama afkaar una ku dhisnayn qabaa'il ay hayeen ethnic group ahayeen groupiya israacay kadibna factor dibadeeda soo galay oo ah Mareykan iyo reer galbeed iyo Sacuudi iyo geopolitics ayaa soo galay oo isaguna manage gareeyay si uu outcome and fiican meesha uga soo saaro su'aasha marka taala waxay tahay mar haddii ay arrinta saa u dhacday Soomaalida maxaa faa'iido ah noogu jira maxaana challenges ah kow horta isbeddelka wali waa under uu socdaa waxaana isahaya laba afkaarood is haysa afkaar waxaa hormoodka Tigreega oo waxay aaminsan yihiin waddanku inuu wali nidaamkii hore ee authoritarianka ku jiro awoodda labaadna waxaa horboodaya Oromo waxay rabaan waddanku inuu furfurmo oo dimuqraadi noqdo si hadhow doorashooyin loo gaaro iyaguna majority-ga maadaama ethnically ay yihiin inay u qaadaan innaga marka haddaan nahay Soomaali saameyn intee leeg yaana dan noogu jirtaa doodu halkaas weeye anu waxaan aaminsanahay isbeddelka wali ma dhamaystirmin waxaan qabaa innaga danteenu waxay ku jirtaa isbeddelka Oromadu horboodayso waqtigan xaadirka sababtu waxay tahay Oromadu waxay riixaysaa democratization Ethiopia hadday dimuqraadi noqoto oo dadku cod yeeshaan dadkeena Soomaaliyeedna cod bay yeelanayaan
dimuqraadiya mar haddii la yimaadana dadka Soomaaliyeed siday saameyn ugu leeyihiin Kenya oo dimuqraadiga oo ganacsi ay ugu leeyihiin oo saameyn ugu leeyihiin ayay sidaas oo kale ugu yeelanayaan haddii laakiin dib loo noqdo oo ay adkaadaan awoodaha raba counter revolutionka oo ah in dictatorialkii uu joogo waxaan qabaa Soomaalidu waxay iska ahaanaysaa sida ay hadda tahay kasii xun oo meeshaas ayaa lagu maamulaya marka waxaan qabaa inaga dhinacaas ayaa noo fiican okay dawladnimada Soomaaliya say u dhaqmaysaa maxaa danteedu ku jirtaa waa very simple mar waa society-ga bulshada dadka Soomaaliyeed marna waa state-ka waa dawladda Soomaalidu markay tahay qowmiyad waa qowmiyadda ugu adag geeska Afrika Oromo iyada ka adag Amhara iyada ka adag Tigray iyada ka adag cabsi male 30 milyan oo geographically dhul aad u weyn oo isku xiran leh oo wada muslima taariikhda marka dib loo raacana pre-nation state-ka iyaga dominant ah laakiin state-ka formation-ka cusub ee colony uu abuuray qaabka uu dhisan yahay ilaa hadda inagu lamaynan qabsanin marka as long as dawladnimadeenu ay weak tahay daciif tahay sida hadda aan nahay dawlad walba naga adkaanaysa sababtoo tahay wali lamaynan qabsanin dawladnimada in la qabsadana waxa laf dhabar u ah inaan mindset-keena iyo afkaarteena bedelno dawladnimadan aan aadno marka qodobkaasna intaas ayaan uga baxayaa gabagabo geeska Afrika oo daga oo mid ah oo la isdhex yaaco waxaan qabaa Soomaali bay dan u tahay sababtoo tahay dadka Soomaaliyeed haddii geeska Afrika isu furmo oo dimuqraadiga Soomaalida ayay dani ugu jirtaa ganacsiga ay dominate gareynayaan Soomaalidu maanta waxay leedahay knowledge iyo aqoon iyo diaspora ka xoog badan qof walba marka dibadaha tagtid jaamacadaha haddan iyaga jooga hadday dadkaas soo noqdaan geeska Afrika ku soo noqdaan ganacsiga galaan Soomaalidu iyada dominate gareyn doonta inaga khatarta noogu weyn haysa waa authoritarian waa dictatorship Ethiopia dictatorial ah oo one group haysto ayaa khatar nagu ah Ethiopia dimuqraadiga iyo geeska Afrika isu furana waa danteena macsantiin aad ugu mahadsan Cabdullaahi sida wanaagsan ugu koobay waxaan fadhiyaa armaano walaalkii baan rabaa inaan ku wareejiyo IT Square